diran hablaha jaaliyada Sool Sanaag iyo Cayn ee degan magaalada Leicester ee cariga Ingiriiska ayaa waxa waday qaar ka tirsan hablahaasi oo iyagu soo booqday cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood iyagoo halkaasi ay goobjoog ka hayeen hablaha jaaliyada Sool Sanaag iyo Cayn ee deeqdan guddoonsiinayay Dr. Cabdi Maxamed Buraale ayaa waxa kamid ah waxyaabihii ay guddoonsiinayay kamid ahaayeen laba taangi oo kuwa biyaha lagu shubto nooca waaweyn shidaal loogu talagalay in lagu shubo mishiinada u shaqeeya cisbitaalka sidoo kale waxay gaarsiiyeen cunooyin bukaanada loo kariyo deeqdan oo hay deeqdii ugu ballaarnayd ay soo gaarsiiyeen gabdho iyagu ka soo jeeda deegaanadani ayaa waxa ka guddoomay Dr. Cabdi Maxamed Buraale wuxuuna halkaas uga mahad celiyay gabdhaha deeqdan soo gaarsiiyay iyo gabdhahan iyagu ka soo kicitamay cariga Ingiriiska ee ka tirsan jaaliyada Sool Sanaag iyo Cayn ee fadhigeedu yahay magaalada Leicester gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa ayuu yiri hablahan deeqdan soo gaarsiiyay cisbitaalka ugu horeyn halkaas waxa ka hadashay mid kamid ah hablihii qurba joogta ee deeqda soo gaarsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood waxaana kamid ah hadaladeedii sida tan Mari Cashuur magaalada jaaliyada Sool Sanaag iyo Cayn oo magaalada Leicester ee wadanka Ingiriiska gabdhaha meesha jooga ayaan soo yiraahdeen cisbitaalka عددeedu total ahaan ay dhammayd tirada guud ay dhammayd 2,000 ay dhammayd lacagtaas waxaan anaga yaani markaan cisbitaalka nimi oo warbixintii helay baahidu say u weynayd ayaan wax ugu qabta waxaan ku gadnay raashin waxaan ku gadnay laba taangi waxaan ku gadnay goosto shidaala iyo biyihii oo lagu shubay wixii kale soo hadhayna oo ahayd $600 waxa loogu dhiibay Saariya in loogu gado yaani sabti waa warbixintan ka helay cisbitaalka intaas ayaa intay qaadeen garteen inay intay qaadeen olaalahooda caawiyaan qof walba in buu ka qaatay dad baa waxa way habeen iyo maalin seexanay sidii markay isugu keenaan sidii lacagta u ururiyaan sidii wax weydiiyaan dadna waxa weeyaan bixintay leeyihiin oo inay intay u qaadaan wax bixiyaan bay leeyihiin oo marka la weydiiyo bixiyaan marka waxa way qof walba deynta ajirkiisa intuu ku leeyahay buu ka qaadanaya uma insha Allah bidmilaahi kariim noqonaysa kii ugu dambeeyay waxay noqonaysaa wax joogto oo marba intay qaadaan gabdhuhu ay ururiyaan oo ay yacnaa wixii la awoodi karo la isu keeno baan hadii wax la qabto dadku wax badan bay qabsan karaan hadii la isu yimaado marka waxaan rajaynayaa iyaguna inay wixii awoodooda ay ka geystaan insha Allah bidmilaahi kariim xitaa waxaan ugu baaqayaa dadkan magaalada degan oo reer Laascaanood oo yacnaa bacmushtarka waxaan arkay maalintii dhawaan marka cisbitaalka ku soo warwareegay meelo yar oo wastaad yar u baahan oo in la sameeyo u baahan waxyaalahaas yar yacnaa xitaa raashinka hadii qof walba ku sadaqadaysto intaas oo kiilo xitaa dadka shicibka loo dhaxmaro qof walba waxa weeyaan dadka bukaan socodka meesha jiifa ma ka dareerayaan marka waxaan ugu baaqayaa qof kasta yacnaa isaga akhridiisa u inay intay qaadaan ay soo caawiyaan insha Allah billahi kariim inta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Dr. Cabdi Maxamed Buraale oo uga mahadnaqay gabdhahan deeqdan ay soo gaarsiiyeen cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood isagoo sheegay cisbitaalku inuu ku tirsan yahay qurba joogta deegaankani ayna had iyo jeer soo gaarsiiyaan caawimooyin wuxuuna sheegay inuu halkan uga mahad celinayo jaaliyada hablaha Leicester ee degan cariga Ingiriiska oo sidoo kale doctorku halkaasi ka sheegay in ay u baahan yihiin qalab casri ah oo shaybaara kaasi ay habluhu uga ballan qaadeen in ay soo gaarsiin doonaan cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood bisoo gaari cisbitaalka waxayna soo gaarsiiyeen raashin iyo lacag iyo laba taangi oo soo sameeyay kitchen si biyaha loogu shubo biyaha macaan iyo biyaha qadhaadh raashinka loogu diyaar gareeyo iyo foosta shidaal oo matoorka cisbitaalka loogu shubay waana noogu ballan qaadeen inay macaawino dambe oo mar kale ayna soo gaarsiiyaan hadii alla hadba baahideedu waxay noqoto waa u sheegno waxaanu baahida loo baahan yahay ugu horeysa waa raashinka bukaanjiifka waxa ku xiga shaybaar hadii shaybaar loo awoodi karo shaybaaradii oo kala qaalisan mid 4,000 mid 3,000 mid 2,000 hadba wixii loo heli karo isla markaa qayb meeshasiga oo markii waxay u baahan tahay معاون وباهنتها iyaduna Cabdi Kariin Nolol Somali Channel TV magaalada Laascaanood